لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، والظلم آخره يفضي إلى الندم، واحذر أخي من المظلوم دعوته. muqdisho waxaan leeyahay iyagana dhammaan hambalyo inay u soo baxeen ay daawadeen ciyaartan. dhalinyarada waxaan leeyahay halkan galabta waqti gabagabo waaye hal fariin ayaan rabaa dhalinyarada galabta inaan u gudbiyo sida aad ugu soo baxdeen ciyaaraha ad marar badan oo horena aad ugu soo baxdeen ugu soo baxa codaynta gobolka banaadir ka dhici doonta haddii la yiraahdo dadkii idin maamuli lahaa wanaagga iyo horumarka idin heli lahaa oo fiican oo dhexdiinna ku jira dhalinyaro ah jecel wanaagga ummadda iyo wanaagga degaankooda fursadaad haysatiin aad ku soo saarta maanta haddii la yiraahdo gacantiinna go'aankiinna ku jiraya go'aankiinna gaara oo gaarkiinna cusub doorta dadka idin matalaya doorta dhalinyaro doorta haddii ay ahayd shalay qabiil iyo reer hebel iyo waxbaa dad noo magacaabo maanta maaha maanta waa codkaaga waa go'aankaaga dhalinyaro dooro laakiin codee yay ku gafin fursadaasi code fursad uma waxaa laga yaabaa aabbaha iyo hooyadaa inaanay fursad u helin inay codeeyaan adaa maanta u helay codee codkaaga iyo mustaqbalkaaga iswaafaji haddii la yiraahdo waa noo doorashada golaha deegaanka ee magaalada muqdisho oo noqon doona golihii deegaan ee muqdisho loo doorto qof iyo cod ah 57 sano kadib. marka waxaan leeyahay hambalyo khayr iyo wanaag alla codeeyo alloo diyaar garoobo nabadda aan ka wada faa'iidno aan nabadnahay waxaan ku muujin karnaa inaan codeyno oon qof iyo cod ku codayna ayaa markhaati waxay ka kacaysaa in deegaanka iyo maxaan ku yiraahdaa magaalada muqdisho magaalo nabad ay tahay waana nabad haddii la yiraahdo aad iyo aad ayaan idin salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi